xabsiga dhexdiisa ayuu wuxuu ka wadaa dhaqdhaqaaq iyo inuu tashkiiliyo maxaabiista iyo inuu fikradihiisa usoo gudbiyo uuna ku tashkiiliyo maxaabiista inay bartaan dhaqamada Israa'iil, qaabka sirdoonka, siday u shaqeeyaan, luqadooda iyo waxyaalaha dastuurkooda ku saabsan iyo diintooda, si markii ay banaanka u baxaan maxaabiista reer Falastiin ay ugula dagaalamaan Israa'iiliyiinta luqadooda ay yaqaaniin, dastuurkooda waxa ugu qoran ay yaqaaniin, iyo sidoo kale sirdoonkoodu sida uu u shaqeeyo maadaama ay yaqaaniin. Kusoo dhawow mar kale iyo muuqaal cusub. Haddii aad nala joogtay waad ku mahadsan tahay, haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir. Like-ta iyo share-tuna waa inoo muhiim. Mahadsanid. Ninkan waxaa lagu magacaabaa Marwan Barghouti. Waxa uu ku xiran yahay xabsiyada Israa'iil in ka badan 24 sano. Waxaa xabsiyada Israa'iil loo taxaabay sanadii 2002 ilaa 2026 ayuu xabsiyadooda ku jiraa. Waa in ka badan 24 sano. Waana qofka kaliya ee dunidan saaran oo ay ugu neceb yihiin. Ninkan asagoo muddo 24 sano ah Israa'iiliyiinta weli xabsi ugu xiran, waxay aaminsan yihiin inuu midayn karo ama uu waan ka dhex dhalin karo Fatah iyo Xamaas oo ah laba xisbi oo u dagaalama ama u dhaqdhaqaaqa xorriyadda ama dowladnimada Falastiin, kuwaas oo ka kala dhisan waqooyiga iyo koonfurta Gaza. Ninkan sidaan oo dhan ay uga baqayaan sanadii 2002 ayay xabsiga soo dhigeen kadib markii lagu eedeeyay inuu wada dhaqdhaqaaq ama uu dhisayo xisbiyo kasoo horjeeda ama u dagaalami doona dhaqdhaqaaqa ama dowladnimada Falastiin. Kadib ayay xabsiga dhigeen sanadii 2002 ilaa iyo haddana waxa uu ku xiran yahay xabsi ama qol gooni ah, mana kusoo dhex daran maxaabiista oo ay ka ilaaliyaan. Balse hadda Israa'iiliyiintu waxa ay leeyihiin xabsiga dhexdiisa ayuu wuxuu ka wadaa dhaqdhaqaaq iyo inuu tashkiiliyo maxaabiista iyo inuu fikradihiisa usoo gudbiyo uuna ku tashkiiliyo maxaabiista inay bartaan dhaqamada Israa'iil, qaabka sirdoonka, siday u shaqeeyaan, luqadooda iyo waxyaalaha dastuurkooda ku saabsan iyo diintooda, si markii ay banaanka u baxaan maxaabiista reer Falastiin ay ugula dagaalamaan Israa'iiliyiinta luqadooda ay yaqaaniin, dastuurkooda waxa ugu qoran ay yaqaaniin, iyo sidoo kale sirdoonkoodu sida uu u shaqeeyo maadaama ay yaqaaniin. Sheekada Marwan Barghouti oo ahayd mid horey laysaga ilaaway ayaa waxa ay soo cusboonaatay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay markii ay dhaqdhaqaaq bilowdeen iyo hay-ado caalami ah oo u dooda xuquuqda aadanaha, kuwaas oo soo saaraya waraaqado ama fariimo ku socda dowladaha caalamka iyo tan Israa'iil oo ah in xorriyadiisa dib loo siiyo ama la sii daayo Marwan Barghouti oo xabsiyada Israa'iil ku xiran muddo ka badan 24 sano, laguna laayahay wax dembi ah, wax loo haystaana aysan jirin, xilligii lasoo xirayana wax dembiya uusan faraha kula jirinin, kuwaas oo weli codsanaya in la sii daayo ninkan xorriyadiisana dib loo siiyo. Israa'iiliyiintuna waxa ay taagan yihiin maya oo ninkan xabsiga kama sii daynayno, mana rabno inaan mar kale xabsiyadeena ka bixino Yaxya Sinwaar oo kale. Yaxya Sinwaar oo ahaa mid ka mid ah raggii ugu caansanaa taariikhdan caalamka oo dhaqdhaqaaq ama gobonnimo dirir ahaa, kaas oo soo maray xabsiyada Israa'iil oo isaguna ku xirnaa xabsiyada Israa'iil in ka badan muddo dhowr iyo 10 sano ah, kadibna xabsiyada Israa'iil ka soo baxay kuna noqday laf dhown gashay Israa'iiliyiinta iyo qof dhib ku ah una dagaalama xuquuqda iyo dhaqdhaqaaqa iyo dowladnimada reer Falastiin, isagoona la dagaalamaya Israa'iiliyiinta ku dhintay meel jiida hore ah ama meelaha lagula dagaalamo Israa'iil, isaga oo qori wata halkaasna ku shahiiday. Sidoo kale waxyaalaha saameyntiisa sanadkan ama warwararkiisa soo celcelintooda kor u qaaday waxaa ka mid ah markii doorasho ay ka dhacday Daanta Galbeed oo ah qayb ka mid ah Gaza oo ayna ku nool yihiin dadka reer Falastiin, kuwaas oo u dhaqaaqay doorasho kuna codeynayay xubnimada ama xubnaha ka tirsan xisbiga Fatah ama dadka ugu sarreeya xisbiga Fatah. Sanadkan ayaana loo codeeyay dadka reer Gazana iyo dadka reer Falastiin waxa ay mar kale dib u doorteen xubinimadiisa ama codadkii ugu badnaa ay siiyeen inuu ka sii mid ahaado ama qayb ka noqdo xisbiga Fatah. Marwan Barghouti oo ah mid Israa'iil u xiran in ka badan 20 sano ayay mar kale dib u doorteen xubinimadiisii xisbiga Fatah, waxayna yiraahdeen haddii aad Israa'iil u xiran tahay annaga ayaa Fatah ayaad nooga tirsan tahay oo haliyey ayaad noo tahay. Taasina cabsi badan ayay kusii dhalisay Israa'iiliyiinta, walwalkoodii ayayna kor usii qaaday maadaama nin xabsi ku xiran ay u doorteen xubinnimo ama ay u doorteen madaxtinimo, nin aysan muddo 24 sano ah dadka reer Falastiin aysan indho saarin oo Israa'iil u xiran inay codkooda siiyaan kuna taageeraan inuu ka sii mid ahaado xisbiga Fatah.
uuna yahay haliyey iyo qof gobonnimo dirir ah oo xisbigooda ka tirsan. Waxa uuna walwalkooda kor usii qaaday Israa'iiliyiinta maadaama nin 24 sano xabsi ku xirnaa dadkiisu ay dib ugu sii dooranayaan asagoo weli xiran inuu xubin ka yahay xisbigooda. Waxayna kasii walwal qabaan haddii uu ninkan xabsiga ka soo baxo muxuu samayn karaa, isagoo xabsi ku xiran ayay dadkiisu doorteen. Muuqaalkani maantana intaas ayuu ku egyahay. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Muuqaal la mid intaan ku kulmayno, mahadsanid.